waxaa magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar tababar loogu soo xidhay diblomaasiyiin ka socday dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda. tababarkan oo socday muddo 2 toddobaad ayaa waxa ay ka faa'iideysteen casharo kala duwan oo muhiim ah kuwaasi oo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda iyo waliba sida dalalka horumaray ay u maareeyaan. sidoo kale tababarkan ayaa waxaa dhankooda ka faa'iideystay diblomaasiyiin ka socday dalka Suuriya iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar. munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ayaa loogu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Qatar kuwaasi oo sheegay inay ka go'an tahay inay caawiyaan oo barbar istaagaan dalalka kale ee ay walaalaha yihiin. sidoo kale xukuumadda Soomaaliya ayaa intuu kulankani socday waxaa lagu ammaanay tallaabooyinka ay u qaaday dhinaca dowladnimada iyo horumarka, taasi oo muujinaysa inay Soomaaliya diyaar u tahay inay la soo noqoto doorkii ay ku lahayd caalamka. sidoo kalena waxaa dowladda lagu ammaanay go'aanka dhexdhexaadnimo ee ay ka qaadatay xiisadda u dhaxaysa dalalka khaliijka. qaar ka mid ah diblomaasiyiinta dowladda Soomaaliya ee ka faa'iideystay tababarkan ayaa dareenkooda cabiraya. runtii waxaan ka qayb qaadanay dowlad oo aad u muhiim ah, waxaana aad uga faa'iidnay wax badan, waxaana looga hadlayay siyaasadda adduunka. marka waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya howlaheedii ay aad u fiicnaadaan, waana aad ugu faraxsannahay in waxyaabaha hadda socda ee waddankii ka socda. waana u mahad celinaynaa dhammaan dowladda Soomaaliyeed iyo dadkii waxaa intaan isku soo dabaruday. waadna salaamantihiin. qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar Mukhtaar Cali Yuusuf oo goobjoog ka ahaa munaasabadan ayaa bogaadin u soo jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar iyo waliba wasaaradda uu hogaaminayo. wuxuuna sheegay inay dhalinyaradu ahaayeen kuwa si wanaagsan uga faa'iideystay tababarkii u socday, wuxuuna dowladda Qatar uga mahad celiyay sida ay u garab taagan tahay Soomaaliya. waxaan u tabinayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba in ay dalkan u yimaadeen diblomaasiyiin dhalinyaro ah oo ay soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, isla mar ahaantaasna ay u fidisay dowladda Qatar ee wasaaradda arrimaha dibadda tababarka asaga ah oo ay ku baranayeen waxyaabahan diblomaasiyadda khuseeya oo dhan. isla mar ahaantaasna waxaan halkan ka qirayaa in ay wasaaraddu soo dirtay dhalinyaro wacyigoodu aada u sareeyo, aqoontoodu aada u sareyso, akhlaaqdoodu aada u sareyso, mathili kara dalkooda iyo dadkooda mathili kara. isla mar ahaantaasna tababarkaas ku dhammaystay ku qaatay magaalada Dooxa wasaaradda arrimaha dibadda qaybta macahad diblomaasiga ay ku qaateen tababarkii oo maanta u dhammaaday yaa loogu sameeyey magaalada Dooxa wasaaradda arrimaha dibadda xaflad loogu sameeyey. xafladdaasoo lagu siinayay jaa-isooyinkoodii ama shahaadooyinkii tababarka ay ku qaateen. isla mar ahaantaa dhalinyaradiina aada ugu faraxday. waxaan mahad weyn uga soo jeedinayaa annagu haddaan nahay tiimkii safaaradda Qatar aan nahay meesha joogtay, waxaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa dowladda Soomaalida. gaar ahaan waxaan mahad usoo bilay wasiirka arrimaha dibadda, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda, wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo xogayaha joogtada ah iyo machadka tababarka diblomaasiyiinta ee Soomaaliya walaalkay Yuusuf calisow. waxaa weeye runtii yani aada iyo aada una saacad kasta oo la joogo telefoonka aan dhigaynin intaa ka warqabkooda meesha aada moodid inuu nala joogo. runtii aad baan ugu mahad celinayaa. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish, warbaahinta qaranka, magaalada Dooxa.